meeshaan horta waxaan rabaa inaan mid ka caddeeyo bataatanba ani inaanan la iqabin. ninkaas hadda sheeganayo ani inuu iqabo aniga ima qabo. qofkii caddayn u haay walaashayda macaan haddaad tiraa dad ayaa qancinaya ma qanci kartid. warkooda dhan dhagaa ka furayso hana u soo jawaabin. mar walba waxay u barteen inay hablaha Soomaaliyeed ay ka oyinsiiyaan ee waxaa jirin ay ka faafiyaan. marka walaashayda macaan waxbaha qancin. Soomaali lama qanci karo. adiga iyo xaajigaaga isku waara ubad khayr qaba kala hela. dadna lama qanci karo. waxbaha isku daalinin. ilaahay ayaa kula og waxa adiga tahay. dad haddaad tiraahdo waxa ahay ee usoo bandhigaya kuma aaminaan wax kale ay ka faafinayaan. marka hadalkooda dhan dhagaha ka furayso hore u soco adiga iyo xaajigaaga isku waara. walaashayda macaan ubad khayr qaba kala hela. Soomaali lama qanci karo wallaahi. haddaad tiraahdo waa qancinaya maba kaa yeelaya meel kale ay kula galayaan. marka waxbaha qancinina warkooda iska dhaafa. haddaa ka aamustaan way iloobayaan waxaas dhan wayna iska dhaafayaan. been raad male sideedaba hore ayaa loo sheegay been raad male. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteyda qaaliga ee waa idin salaama meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin. waa mar kale iyo walaashiin Iqruuja. ugu horeyn haddaa janaalku cusub tahay subscribe saar. haddaa hore noola joogto qaybta leega naga dhis fariimaha qabtaan commentiga noogu reeba. soo dhawaada walaalahayga qaaliga meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin. aad iyo aad ayaan idinkugu xiisay. waxaan rajeynayaa walaalahayga qaaliga sida anigoo nabad qaba idinkugu soo laabtay in adigoo nabad qabtiin iyo ugu soo laaba doontiin. walaalahayga qaaliga soo dhawaada gacmo furan niyad saafiya maasha Allah. maanta maxay rabtaa walaashiin Iqruuja inay ka hadasho. waxaa ka hadli rabaa walaalkay Kamaal Cabdulle iyo xaaskiisa dumaashideena qaaliga aad iyo aad ayaa looga xanaajiyay karaal naqayaa leeyahay. dad social media ku jiro qaarkood ayaa xanaajiyay ayaa dhahday sida fiidiyowga hordhiciisa u soo aragteen. marka walaalayaal u qafiifiya gabadha ka xanaajinina. waxaasiti wax aan hubin horta u malayna dadka ku eedeynina. wax aan hubin aan mar walba idin sheegaa qofka bini'aadanka adoona aqoon u lahayn ma dhihi kartid saas iyo saas waaye. marka gabdhaha Soomaaliyeed mar walba inay ku oyinsiin ayaa hore u barateen sida iyadaba kugu sheegtay. iska daaya waxyaabaha u malayna dhehaysiin. hadda waxaa ku kalifteen heer ee shareerka iska furtay wajigeeda inay soo bandhigto. inkastoo wajiga oona coore ahayn laakiin si iyada jeclayn maanta ayaa ku kalifteen. marka walaashayda macaan Soomaali lama qanci karo ayaa adigana ku leeyahay. waxbaha qancina dadna waa qancinaya mar walbo ma qancayaan. waxay ka rabaan le war cusub mar walba sheeko cusub ay furayaan. marka sheekadooda dhanba meeshan ku soo xir ayaa ku dhihi lahay. marka walaalayaal adigan waxaa hubina umadaha ku eedeynina. gabadhaasiyad walaashiina meesha aroos cusub way u ducey laheedeen ayaa arooskeeda hadal iyo buuq iyo waraa loo joogan gelinaysiin. sideedaba beenta raad male. waa 2 week ama 1 week ayay soconaysaa wayna iska dhamaanaysaa. marka u soo jawaabina walaalkay Kamaal iyo dumaashideyda. sidaas ayaan dhihi lahaa Iqruuja ahaan fikradeyda sidaas ayaa dhihi lahay. ani ma jeclina dadka bini'aadanka anoo waxba xaqiiqo aan haynin mar walbo aan dhaho science waaye. wax hadaa rabtid na reaction ka bixisid si toosan ayaa looga bixiyaa. walaalaha YouTube-ka leh oo social media nagula jiro ayay fariintan ku socotaa. qofka daartina reaction ka bixisid si nadiif ayaa looga bixiyaa. saas aniga ma hubi laakiin iska daaya calaashaan waana ahaan ayaa loo jeediyaa. laakiin qofkaan aqoon u lahayn guri la joogin aan noloshiisa dhan aan war ka heenin xataa maanta hadee dhacdo inaa war ka heeso looma baahna inaad dadka ceebahooda waxooda qodid. inkastoo haddaa gabadhaneytu wax ka heysiin aan jirin haddaa wax ka heysiin mar hore ayaa si fiican soo bandhigi laheedeen. marka walaalayaal iska daaya dhibaatada tirada badan aawadiin mar walbo wax fiican ma insha Allah. waxaa idinku wanaaga iyo khayrka iyo walaalahayga qaaliga sidaas ayaa liin fiican. adduunkaneeti waa laga tagayaa qofku waareysa ma jirto. insha Allah wanaag iyo khayrka isku faafino. walaalahayga qaaliga fiidiyowgayga hadduu ku soo gaaro subscribe-ka leega hayga hagran insha Allah ilaahay khayr ha ku siiyo. subscribe-ka dhac ku sii leegana sidoo kale tood insha Allah si oo dad badan u gaaro fiidiyowga. marka walaashayda macaan adigana isdaji xanaaqa badan iska yareey. Soomaali war ma galaayo insha Allah. dadka wanaaga jecel waxaa rajeynayaa inay warkaaga fahmi doonaan. dadka xumaanta ka talinayna ilaahay soo hadeeyo. intaas ayaa ugu baxaya walaashayda macaan.
insha Allah fiidiyoashiin cunto karinta way idin soo socotaa asxaabteyda qaaliga ah. qurxinta sidoo kale way soo socotaa, fiidiyoyaal badan ayaan idin soo wadaa. insha Allah janaalka subscribe gareeya, like shareka ku dadaala. janaalkan subscribe fiican nooma haysto walaalahayga qaaliga ah, inaa caajis ka kaco daarabtiin. insha Allah ila dadaala, subscribe ka dhacdhac ku sii like sidoo kale tood wax lacaga maaha. insha Allah ha iga hagranin, walaashaada ayaa ahay. Soomaali Maxamed meel walba adduunida daafeeda ka joogtiin, gacmaha is qabsada. waa inoo sidaas iyo nabadgelyo. next video kale aad iyo aad u qurux badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mac salaama.